waa makhaayad shaah oo ku taal bartamaha magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag balse si ka duwan makhaayadaha kale halka waxa ka jira xeer cusub oo ay macaamiisha rasmiga ah ee shaaha ka cabaa samaysteen wuxuu dhigayaa in qofka doonaya inuu meherada ka sheekeeyo uu shaaha u shubo dadka markaas fadhiyo oo dhan si loo dhageysto sheekadiisa waa dhaqan Soomaali in meheradaha iyo meelaha kale ay dadku isugu yimaadaanba lagu sheekaysto balse macaamiisha fadhisama Xingalool ee dhaqankaas sharciga duldhigay ayaa ku doodayay inay doonayaan in la isdhageysto oo aan la iska dhinac sheekayn si aan buuq u dhalan marba qofkii haya sheeko mudan in la dhageysto ama dadka la wadaagayo xog uu hayo ayaa la dhageystaa lagamana dhex galo isaguna wuxuu bixiyaa lacagta shaaha markaas la cabay Saciid Umar Ali waa mid ka mid ah dadka makhaayaddan sida joogtada ugu xidhan wuxuuna ku jiraa dadkii xeerka soo rogay raadiyaha ergo ayuu u sheegay markii xeerkan la isla qaatay in makhaayaddu noqotay mid nidaam leh markii hadalkii lagu heshiin waayay nin walba ama cid buu taageeraa ama message buu xambaarsan yahay hadalkeena marka uu noqdo maxay ahayd nin walba Soomaalidu dabacad bay leedahay waad aragteen oo waxa weeyaan hadalka ma kala dhageysato markaas ayaa waxa lagu heshiiyay shuruuc baa la samaystay waxa la yiri meesha wixii ka dhaca oo shaah ah oo sharaab ah ninkii maalinta sheekaynaya baa qaba oo sheeko sida ama doonaya inuu message-kiisa gudbiyo cid kale oo soo maxay ahayd hadalka ka soo dhixgalaysana ma jirto sidaasna ha lagu ixtiraamo ha lagu dhageysto qofka dadka u sheekaynaya oo shaaha shuba wuxuu shaaha ka bixiyaa dadka markaas fadhiya makhaayadda kuwa wadada maraya oo loo yeedho iyo qofkii 2 ama 3 koob cabaya mararka qaar dad ka badan 200 oo qof ayuu qofkaasi shaaha ka bixiyaa qiimaha 3 koob ee shaaha ah makhaayaddan waa $1 barkii haddaba sidee ayay arrintan u arkaan maamulka makhaayaddu Faaduma Axmed Xasan waa maamulaha makhaayadda shaaha ee fadhisamo taasi wanaagsan baan u arkaa because of waxa laga yaabaa in meheradii markaa uu nindho intuu soo fadhiisto uu intii fadhiday in kale ay soo fadhiistaan oo mujtamac badan uu yimaado shaahana uu dhaho dusha ka qiimeysno ana bixinayo uu dhaho saasna ay ku dhamaadaan ama kili ama 2 kili taasi waa mid wanaagsan kasoo suuqa ay meheradu ka heshay xeerka shaaha wuxuu kaloo xeerkan fududeeyay in dadku meherada ay si wanaagsan ugu kala warqaataan sida uu mar kala qabo Saciid Umar Ali waxa ugu xisaab badan horta barwaaqooyinka Ilaahay ina siiyay baa ka koow ah oo la iskaga wareysto waxa ka koow ah dawladda Soomaaliya iyo meelaha ay marayso baa laba ka ah iyo waxyaabaha la hiigsanayo waxa la yiraahdo dhul xaalufka iyo waxyaabaha la midka ah sidii wax la isaga weydiin lahaa waxa kale oo ka jirta subaxaas waxa qofka shaaha shubay oo meesha fadhiya isagoo ugu weyn u xaqaya ama uu markaa dareensan yahay inuu halka kaga hadlo jawaabna waliba uu ka waaba loo sameeyay hayba ninkii saaqso waxdaas soo qaawiyo yiraahdo adeer aniga $5 $10 u soo sariftay meesha ninkaas isagu waxa weeye laga celimay lama kala le meesha waxa lagu kala helayaa waa ninkii isagu markaa u diyaara inuu hawsha uu yiraahdo marka ugu horeysa codsada sheekooyinka qaar ayaa qaata saacado haddii qofka sheekaynaya daalona waxa nasiya hadba qofka uu wakiisho maadaama uu isagu shaaha bixiyay dhageystayaashuna waxay ku ceshtaan shaaha mar kale inta badan makhaayaddan waxa la fadhiistaa marka duhurka la soo tukado oo reer guuraaga oo macaamiisha meheraddan u badani ay hawlahooda soo dhamaystaan sida waraabinta xoolaha oo gelinka hore lagu hawlan yahay ku dhaqanka xeerkan oo ay macaamiisha meheradda shaaha soo rogeen waxa ilaaliya isla macaamiisha iyadoo qofka jabiyana laga mamnuuco inuu sheekeeyo iyo inuu cabo shaaha qof sheekaynaya bixiyay hadda ka hor hal nin baan intaan garanayo laga joojiyay ninkaasina wuxuu sameeyay wuxuu yiri ana hawshaas waxa la yiri hawsh sharcigaas meesha ka socday dadka u daa wuxuu yiri maya maanta aniga meesha raba shaahi markuu 10 marayay oo 10 koob u marayay oo saa u eegay oo intuu 10kii bixiyay yiri aniga iga xidhay kadibna waxa loo sheegay inaan meesha ku soo noqon meel nagu dhow buu fadhiistaa markii meesha waxa ka dhacaya ma xadidna sheekeeyaha iyo loo sheekeeyo balse jeebka sheekeeyaha iyo xiisada ay sheekadiisu leedahay ayay ku xidhan tahay camirnaanta iyo xog isdhaafsiga makhaayaddu daayarta ayaa iyagu xiiseeyay sheekooyinka shaaha la isku dhaafsado waxayna caado dhaqameedkan u arkaan mid ay ku heli karaan xogaha waqtiga aysan soo gaadhin sida uu qabo Abdixakiin Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada ku xidhan makhaayaddan shaaha iyo sheekada laba mid baan ka helaa oo waxaan ka helaa horta wati dhaqanka Soomaalida oo hore midna waxa weeye taariikhii dadku soo maray hadii ahaan halganid systemkii dawladeed ee wadanka jiray waxa soo dhan waan ka faa'iidnaa dhalinyarada horta anagu sheeko badan baan u hayno inta badan odayadaasaan faa'iido badan ku qabnaa meherada qosol iyo waxyaalo badan oo ka helaa faa'iido runtii waaba u shaah bilaashna waan ka helayo
dee waa isaga soo tagnaa moogta. cabista shaahu waa mid sarraysa guud ahaan gobolka Sanaag maadaama uu jawiga gobolka inta badan uu yahay mid qabow waxaana shaah cabistu sii korodhaa xilliyadan diraacda ah ee qabowga badan